بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan joognaa madda waa isbitaalka Galkacyo dhanka galmudug anoo maamulaha isbitaalka Galkacyo waxaan rabaa halkan inaan ku soo gudbiyo akhbaar ku saabsan xanuunkan COVID-19 wadanka ka dilaacay ee adduunka dhanba khaas ahaan wajigiisa labaad wadanka si fiican soo gaaray ayaa runtii culays badan wuxuu ka hayaa gobolka mudug haddaan si khaas ah u sii fiirsho degmada Galkacyo cudurkan runtii haddaan warbixin ka soo kooban aan soo gudbiyo bishan intaan ku jirno Maarso gudaheeda waxa baaritaan lagu sameeyay dad gaaraya 177 qofood waxaana runtii laga helay cudurkan laga helay 78 qofood waa runtii number badan oo ka mid ah bulshada dadkaas laga helay ma ahan magaalada Galkacyo dadka waxay kala yimaadeen guud ahaan ayuu xanuun u yimid magaalada Galkacyo waxay ka yimaadeen deegaanada la xiriira sida Hobyo Ceelguula Wasiil Budbud Bitaale dhulkaas dhan baa laga yimid dadkuna aad u xanuunsanaa haddaan si hoos u fiirino 10 maalmood u dhameysay dhimashada waxay gaaraysaa 8 qofood oo u badan wuxuu ahaa dad waayeel xoogooda ahaa waxaan ku jirtay qof dumar ah ku jirtay dadkaas runtii inta soo gaarta cisaalka oo baaritaanka hesha ayaa runtii intaas u ahaayeen waxa qaarna soo gaaraysa runtii dad badan oo kamid ah xanuunkan inay u dhinteen ah ayaa jirta soo gaaraysa oo inkastoo aynan sameyn wuxuu ahaa baaritaan ku sameyn haddana calaamadihii cudurkan lahaa ka muuqdeen ayagoo soo gaarin baaritaankiina dhintay baa jirta waxa bishan gudaheeda waxaan la sheegay ilaa 14 qofood oo magaalada gudaheeda iyo tuulooyinkaba ka jirta runtii waa number badan oo u baahan runtii juhdiisa u baahan weeye in wax laga qabto ka shaqaale caafimaad ahaan maadaama dadku bukaanka meelaha imanayaan isbitaalada ay yihiin gobolka mudug baaritaanka shaqaalaha la baaray oo laga helo xanuunkan waxay gaarayaan shaqaalaha laga helay 15 qofood waa dadka shaqeynayay oo muxuu bukaanadu imanayeen ayaa runtii intaas numberku maraya laga helay oo haddana shaqadii badnay oo runtii culays ay xagga shaqaalaha musaafurey culays dadna waxaan sameynay runtii inaan muxuu ahaa taxadar badan la sameeyo isbitaalka hortiisa aan dhignay muxuu ahaa baaritaan ku sameynay qofka soo qandhadii leh in baaritaan si gooni loo qaabilo dadkan la siiyo face mask la siiyo oo qofka soo gelisa ee soo xirtay face mask si aan u noqon waxaan qofka soo booqatay iyo qofka jiranba dadka jirana waa laga celiyaaba wuxuu leeyahay qayb khaas ah oo u talagalnay bukaanada ayaa jira dadkaasina runtii xaggaas loo weeyo dadka bukaan la jooga soo aadaya soo booqan isbitaalka ayaa qaarkood ayuu calaamad isku arkin ay cudurka sidii karaan qadarta saysan ugu gudbin waxa bukaanada kale ayaa waxaanu siinaa face mask waana kala talinaa gacmo dhaqashada intaba waana kala talinaa qofku inuusan toos bukaanada kale uusan gacnaha wala gelin oo uusan la xiriirin arintaas imahaas ayaa jira runtii muxuu ahaa culays ku jira qaybta loogu soo galay bukaan jiifka oo bukaanada dadka xanuunkan soo rito waxaanu jiifina kaliya dadka u baahan oxygen u baahan inaan iscuna nasiib daro culayska naxta waxa weeyaan ma hayno oxygenkii silindarada ahaa ma hayno waxaanu haysanaa oxygenadan ah concentratorka oo nooca ugu waaweyn oo aan hayna uu yahay 10 litir per minute uu yahay kaasoo runtii uusan ku filnayn bukaanadan ayagoo bukaanada oxygen ugu xidhan yihiin ayaa dadkan aan u jeedid oo 8 qof ay ku dhinteen cusaalka markuu xidhan yahay oxygenka qof ma dhaafayo 170 ma dhaafayo asoo ku xidhan oxygenkii oo nooca noogu weynaa ahaa iyuu inta dhaafeen marka waxaan dareemaynaa in loo baahan yahay oxygenada silindarka ah oo aan gobolka ka jirin dhanka waqooyiga magaalada ayuunba bulsho ku oli jirtay ayadana way halawday marka haddii xataa la yiraahdo qof walba hal raadiyo waxay noqonaysaa in xamar loo raadiyo in inta qof u baahan oxygen u baahan baawur baa la saarayaa hambaa xamar loo dirayaa runtii waa wax dhib badan oo aysan nafta ku soo gaareen bukaankii marka waxaan leenahay runtii dadaallada jira runtii ay bulshadu wado oo muxuu ahaa meel kasta oo kamid ah dadka jaaliyadaha deegaankana ay runtii isxilqaan badan sameeyeen
aad baan ugu mahadcelinaynaa sidii xun looga qaban lahaa marka howlahan magaalada laftigeedu runtii ma fadhiyaan waxaanu sameynay runtii dhaqdhaqaaq kicin badan sameynay sidii loogu heli lahaa isbitaalka iyo bukaanadaba oxygen balance loogu heli lahaa fikir noocaas ah anakan ka duulayna ayaan dhaqdhaqaaq wadnaa waxaan rabnaa marka cid kasta oo ka qayb qaadan karta hawshaasi inay gacan ugu siiso sidii loogu heli lahaa bukaanadan silindaradii laga keenay muqdishona qofna ku sinumayso muxuu ahaa xanuunsan in muxuu ahaa uu sugo silindarka xamal ka imanaya oo asaguna xilliga ku qaadanaya iyo xilliga la helaya aysan caddayn marka waxaan leenahay dadka walaalaha ku dhaqan muxuu ahaa daafaha dunida khaas ahaan gaalkacyo iyo adduunka oo dhanba in laga qayb qaato si muxuu ahaa loogu heli lahaa isbitaalka gaalkacyo iyo guud ahaan gobolkaba mishiinkaasi baantiga oo si muxuu ahaa qof walba loogu helo oxygenka ay u baahan tahay maadaama cudurkan uu yahay cudur faafa oo meel kastaba gaaraya adduunyadii koowaad buu soo dhameeyay iyo tii labaadba marka inuu faajir noogu yimid meel kastaba way muuqataa marka waxaan leenahay cid kastoo awood dhaqaale nagu tagi karta waxaan ka codsanaynaa in muxuu ahaa gacana la siiyo si aan u helno oxygenada hamaha silindarada aan u helno qorsheeda waan aad ba masantihiin